maadaama bariga dhexe uu ololayo dhibaatooyin aad u xoogana ay jiraan qadarna ay noqotay waddankii ugu mudabeeyey ee dulmane u noqday weerarada israa'iil ay dumayso naxariista aan lahayn ayna noqotay wadamada tarabeelka ah ee caalami carabi iyo caalami islaami oo israa'iil ku kala bixisay kana dhigan mar walba marka dambaysa in wadamada caalamka islaamka markii hoggaankoodii uu jabay shacabkoodiina ay fashiliyeen ay biiqeen oo baqeen kala daadsameen islamarkaana ay noqdeen maatacaana leh mar walbana la darsanayo goor allaale goortii la doono goobtii la rabana la duqeynayo taasoo ka dhigan in aysan awood la-aani jirin laakiinse ay jirto hoggaan la-aan hadda garatay in hoggaanku uu ka muhiimsan yahay awoodda iyo hoggaanka waxaa horeeya hoggaanka saa garata awooddu waxaa kuma taraysa haddaadan haysan cid kugu hoggaamisa sidoo kalena karti haddaadan haysan hogaamiyaal karti leh oo arrimahan oo kale wax ka qabta garatay hadeerto in gebi ahaanba waxyaalihii carabta 6 maalmood hadda ka hor looga adkaadayna ay sidan oo kale ahayd hadda garata hadeertana garatay in waxyaalaha carabta ku dhacay ay gebi ahaanba ay ku dhici karaan mustaqbalkooda dhowna sida ugu rasaha badan wax ka daran haddii aysan sidan aysan helin dad wax ka tara oo ka qabta laakiin amiirka dalka sacuudi arabiya amir maxamed bin salmaan bin cabdilcasiis ayaa khudbad uu jeediyey waxa uu sheegay in uu uga hadlay telefoon dhex maray isaga iyo amiir sheekh tamiim xamed thani amiirka dalka qatar waxa uu sheegay marka u horeysa inuu la tiiraanyooday islamarkaana la dhibtooday kana galiilyooday weerarka lagu qaaday wadanka qatar wuxuuna sheegay in weerarka qatar lagu qaaday uu yahay fariin aad iyo aad u cad oo wicitaan ah oo ka timi netanyahu iyo kooxdiisa sidaa daraaddeedna waxa ay wakaalada wararka markii dambe dalka sacuudi arabiya afkiisa ku hadashay SPA ee Saudi Press Agency ay sheegtay in labada nin hadalka dhex maray uu ku soo qayooday inuu Maxamed bin Salmaan uu leeyahay tani waa duulaan qaawan waxaanad naga sugtaan annaga waxa weeye wax kastoo aad ku tashataan inaanu 100% idin taageerno amiirka dalka qatar amiin tamiim ayaa uga mahad celiyey madaxda caalamka ee arrintan ka soo hadashay waxaana uu sheegay in uu gebi ahaanba ay dowladdiisa uga abaalhayso sidaas wuxuuna ka digay in dowladdiisu ay xaq u leedahay mar kale in ay aarsato ama ay tallaabooyin qaado laakiinse ilaa hadeerto lama sheegin qadar wax markaasi laisku halleeg karo oo ay kaga jawaabaysa arrintan halka dad badan ay ugu baaqayaan qadar inay jawaabo bixiso haddaysan qadar gantaalo u dirin israa'iil oo aysan duqaynin dhowr goobood oo israa'iil ku yaala waxaa la sheegay hadeerta inay noqon doonto waraaba dareereen mar allaale markii la doonana laga markaasi la duqey karo la hujuumi karo xogayaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres ayaa ku tilmaamay weerarka lagu qaaday qadar mid gebi ahaanba xadgudub ku ah gobonimada dhulka iyo sidoo kale madax banaanida daleed iyo qureed ee dadka iyo dalka wasaaradda arrimaha dibadda dalka sacuudi arabiya ayaa ku celisay in weerarku uu ahaa mid ay ka argagixisay markaa naxdin wasaaradda arrimaha dibadda dalka turki ayaa sheegtay in ay qadar gabi ahaanba ay garab taagan yihiin bartilmaameedsiga dadkii wadahadallada ka wada hadlayay iyo ergadii nabadda u fadhidina ay ahayd mid kale oo muujinaysa argagaxgelinta in israa'iil aysan doonaynin waxaan ahayn siyaasadeeda dhulfidsiga iyo isballaadhinta ee waalan wasaaradda arrimaha dibadda dalka loo yaqaan isku tag imaaraadka carabta ayaa ku tilmaantay qadar walaalkood waxayna sheegtay inay ka xuntay waxa dhacay la taliyaha amniga qaranka Anwar Qarqaash ayaa sheegay in ay caddahay ama arrimaha diblomaasiyadda la taliyaha u ah madaxweynaha ayaa sheegay inay caddahay in qadar ay wajahayso waqti adag gobolkuna uu u baahan yahay tan uusan ku kala qaybsamin dowladda Kuwait ayaa sheegtay in ay gebi ahaanba si aad u adag u cambaareenayso weerarka kartarada ay la soo qaaday urdun oo ka mid ah maxamiyadda israa'iil ee dusha ka maamulato ayaa iyaduna weerarka lagu qaaday qadar wuxuu ka dhigan yahay mid lagu soo wada qaaday idilkeed afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Fuad Majali ayaa sheegay in weerarka israa'iil mar kale uu cadeynayo sida ay wadamada carbeed ay marba mid u qaniinayso dowladda Iiraan ayaa ku celisay mar kale in ay diyaar u tahay inay caawiso qadar xilli ay wadamada caalamka islaamku ay midi dhamaantood surka ka wada saaran tahay Ciraaq wasaaradda arrimaha dibadda iyaduna waxay ku tilmaantay weerarka mid fuleynimo ah bahalnimo sidoo kalena mar kale muujinaya gaadmada iyo qaniyada dhabarka la iska qaniinayo inay dhaqan tahay Xuseen al-Sheikh madaxweyne ku-xigeenka maamulka Falastiin ayaa markii ugu horeysay khadka soo fadhiistay oo ka mid ah dadka la aaminsan yahay in Israa'iil geysatay xukunka PLO wuxuuna sheegay in uu hadeerto ka argagaxay wax halkaas ka dhacay Mahdi al-Mash'ad madaxa guud ee hay'adda ugu sarreysa ee ururka Xisbillah ee Houthi Supreme Political Council ayaa wadamada carabta iyo caalamka islaamka ugu yeedhay in waxa kaliya u yaala ay tahay in ay dagaal galaan haddii aysan dagaal gelinna ay tahay waxa ay la kulmayaan tan iyo mid ka daran wuxuuna sheegay in bahalnimada Israa'iil sida kaliya ay wax ku fahmi karto ay tahay qori caaradii laga argoosto sidaas Maldives wadanka ka mid ah jasiiradaha badda Indian Ocean ee wadamada caalam islaami ayaa sheegay in ay ka galiliyoodeen waxa soconaya waxayna sheegeen inay garab taagan yihiin dowladda Ingiriiska ayaa beenisay inay wax ka ogeed weerarka waxayna sheegtay inay ka cuntay ra'iisul wasaaraha Keir Starmer ayaana ku tilmaamay in uu weerarku uu yahay mid mudan in la cambaareeyo gaar ahaan magaalada Doha la weeraro uuna ku tilmaamay in loo baahan yahay xabad joojin
degdega la sameeyo laakiin weli hadalkoodii nacnacda ahaa ee hala sii daayo dadka afduuban ayaa shuruud laga dhigay. faransiiskana madaxweynihiisa macron ayaa sheegay in uu tahay waxaan la aqbali karin weerarka lagu qaaday dalka qatar, wuxuuna sheegay inuu garab taagan yahay amiirka dalka qatar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan athani, uuna aaminsan yahay in dagaalka sida ugu dhaqsaha badan loo soo gebagabeeyo. kumuusan darin isagu sida ingiriiska munaafaqa ah ee caanka ku alaba wejinimada eelkan iyo waxaan oo dhanna dhigay arrinta dad hala sii daayay wax noocaas oo kale ah. dhinaca kalena bakistan ra-iisul wasaaraheeda shahbaaz shariif ayaa ugu yeedhay weerarka lagu qaaday dowladda dalkaasi qatar iyo wuxuu yidhi rushaynta magaalada dooxa la rusheeyey sharci darro iyo bahalnimo dhurwaannimo ayuu yidhi dhaqan xumo tii ugu darreed iyo argagixisanimo. wuxuuna sheegay in ay dowladda dalka bakistan ay garab taagan tahay walaaladood qatar, islamarkaana dadka reer falastiin ay la daba heeti doonaan in ay af iyo adinba ku taageeraan. xamaas ayaa weerarka ku tilmaantay inuu ahaa dembi aad u xoogan iyo sidoo kale xadgudub shuruucda caalamiga ah, ayna muujinayso in aysan cid aan iyaga hayna nabad rabin. libnaan ayoo ah xukuumadda taagta daran kana mid ah maxmiyadda israa'iil ayaa iyaguna waxa ay sheegtay inay si aad u xoogan adduunka ugu baaqayso in wax laga qabto arrinta. morocco oo ka mid a wadamada ayaguna ibrahim akoorka galay goor sii horreysana u gurguurtay netanyahu iyo kooxdiisa 2020 kuna biiray markaasi heshiiskii aan la mahadin ee ibrahim accords ayaa ku tilmaantay inay il ku eegi doonto weerarkan kuna cambaareen doonto si adag ereyada ugu sii adag, ayna u aragto weerar lagu qaaday xadgudub ka dhana wadankaasi suuriya iyo kooxda markaasi dimashq haysata oo iyaguna mudanaya tanoo kale ayaa markii ugu horreysay cambaareeyey israa'iil ayagoon weligood aan cambaaraynin weeraradii dalkooda ka dhanka ahaa. tan laakiinse waxay u egtahay inay tahay istaad raacin iyo sidoo kale inay ku baroor darsanayaan wadamada caalami carabi, waxayna ku tilmaameen inay aad iyo aad ay uga xun yihiin. khartuum wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa sheegtay inay tani tahay sharciga caalamiga ah oo lagu xadgudbay, ayna qadariyiinta walaaladooda garab taagan yihiin itaal meel kastaba ha dhige. dowladda masar cabdilfataax al siisi ayaa arrintan si toos uga hadlay, wuxuuna khadka telefoonka uu ku qayraamiyey amiirka dalkaasi qatar si uu u muujiyo sida ay dowladda dalka masar arrintan ay u aragto. sheekh tamiim maxamed athani ayaa ku tilmaamay in madaxweynaha dalkaasi qatar gebi ahaanba uu hogaamiyaha dalkaasi qatar madaxweynaha dalka masar uu la wadaagayo galiiliyada, sidoo kalena uu ku khasban yahay in ay gebi ahaanba isgarab taagaan. ururka GCC xogiyahooda guud jasim al budaawi ayaa ugu yeedhay weerarka inuu yahay fulinimo iyo howlgal gebi ahaanba muujinaya mid liita laisgarab taagana uu ku baaqay qatar. algeria ayaa weerarka ku tilmaantay argagixisanimo, waxay sheegtay inay garab taagan tahay wadanka walaalahooda cumaan. wasaaradda arrimaha dibadda waxay tidhi weerarkan waxa uu ahaa mid gebi ahaanba bahalnimo ah, xun oo ficil aad iyo aad u liita. mauritania waxay ka mid tahay wadamada sida aadka u xoogan ugu baaqay in qatar la isgarab taago. magaalada nuwakshot war qoraal oo ay ka soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda waxay ku yidhaahdeen dhammaan waxaanu qaadanaa tallaabo kasta oo ay doonayaan in amniga walaalada lagu sugo. halka kazakhstan madaxweynaheeda qasim joromat koyef uu yidhi waxaanu aragnaa waxaa weeye gebi ahaanba sheekooyin abaabulan oo ah in mar kale lagu qaado wadan carbeed oo sida qatar oo kale oo degan oo xasiloon weerar. isbaaniya ayaa ku tilmaantay weerarkaasi inuu ahaa mid bahalnimo ah iyo bambayn magaalada qatar xarunta u ah in uu muujinayo xadgudubkii ugu dambeeyey. libiya waxaa ka mid tahay kuwa liiska kusoo biiray, halka ra-iisul wasaaraha waddanka talyaaniga haweeneyda loo yaqaana meloni iyaduna ay sheegtay in ay la garab taagan tahay dowladda dalkaasi qatar taageero, ayadoo ay u muuqato in wadamadii caalamka qarbiga xitaa ay kusoo biireen qatar inay markaas u heeliyaan. wasiirka arrimaha dibadda dalka jarmalka annalena backbook ayaa sheegtay in weerarka ka dhacay dooxa uu yahay waxaan la aqbali karaynin. waxay tiri tani waa xadgudub ka dhana wadanka qatar. european unionka ayaa sheegay in ay tani muujinayso in weerarkii ka soconayay iyo dagaalkii qasa la fidiyey islamarkaana meel kale la geeyey. dowladda maraykanku waxay ku tilmaantay waxaan midnaba caawin doonin dhinacyada. waxaa cajiiba ilaa haddeerto inaan soomaaliya meel lagu soo qoray aan la arag warqadeeda. dabashana qiimaha badan koley anugu ma arag warbaahinta caalamka baan arkiyaa, anugu aan warar kasoo xiganaa warbaahinta caalamka kuwa jirto, inkastoo inta badan aljazeera aysan soomaaliya sooba qaadan oo aysan xigan oo aysan wararkeena xigan. waa laga yaabaa inay war soo saareen, waan baari doonaa qeybaha dambe ee wararka bal inay dowladda soomaaliya ka hadashay in kale, laakiin inta badan tvga aljazeera wuxuu caan ku yahay inuu soomaaliya xaqiro wararka wacala dhinaca dirsa. dabashana qiimaha badan ee qeybaha kale wararka wacala.